saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa war ka soo saaray shirka ka socda caasimada dawladda Galmudug ee Dhuusamareeb wajigiisa saddexaad. Waxaa lagu baaqay madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland inay ka qayb galaan shirkaasi isla markaasna ay qayb ka noqdaan go'aanada shirka laga soo saarayo. Beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inaysan aqbalin doonin go'aano doorasho aan isku raacsanayn isla markaasna ay ku baaqayaan dhinacyada ay ka dhaxayso saamileyda siyaasadda Soomaaliya inay go'aan mid ah ka gaaraan ka hor intaysan soo saarin go'aano dhinac kale ah. Qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa marka hore lagu sheegay in ay soo dhaweynayaan in hoggaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah ay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug 15 bishan Agoosto ay ka bilaabaan kulankooda xiga ee sida qorsheysan looga doodayo arrimaha ay ka talinta Soomaaliya iyo doorashooyinka. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa guddiga farsamo ee wadajirka ah ee loo xilsaaray diyaarinta xulashooyinka hanaan doorasho oo la isku tanaasulay oo la isku afgarto si madaxdu ay uga baaraandegaan go'aanka kama dambaysta ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay beesha caalamka. Beesha caalamka ayaa sidoo kale ugu baaqday madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee aan weli ka qayb ahayn kulanka in ay ku biiraan shirka Dhuusamareeb ayna si toos ah ula xiriiraan dhigooda jooga caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb si loo xalliyo wixii la xiriira arrimaha taagan ee dhankooda iminka loogu xiran yahay. Saaxiibadu waxay ku nuuxnuuxsanayaan in ay muhiim tahay in dhammaan madaxdu ay ka qayb galaan shir madaxeedkan si loo sii wado geedi socodka dhisidda is-afgarad wada ogal ah loona soo saaro heshiis ballaaran oo laga gaaro hanaanka doorashooyinka federaalka 2021 oo qanciya dhammaan saamileyda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka. Waxaa dhammaan madaxda xusuusinayna muhiimadda ay leedahay ilaalinta horumarka la gaaray dawlad dhisidda Soomaaliya iyo ka soo bixidda ballamadii hore loo galay. Si kastaba beesha caalamka ayaa waxay ka digtay in la meel mariyo nooc doorasho aan isku raacsanayn taa beddelkeedna ay madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawladaha xubnaha ka dalbanayaan in go'aano mid ah la gaaro ka hor intaan la soo saarin go'aan hal dhinac ah. Iyadoo tan la eegayo saaxiibadu waxa ay mar kale ku adkeynayaan isku day kasta oo ku socda mid kaliya ama qaar ka mid ah saamileyda taa beddelkeed waxaan dalbanaynaa isla markaasna aan codsi u jeedinaynaa madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawladaha xubnaha ka ee shirka uga socday Dhuusamareeb in xal loo helo khilaafka taagan. Saaxiibadu waxa ay si dhow ula socdaan waxyaabaha ka soo kordha kulanka ka socda caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Qoraalkan si wadajir ah waxa uu soo saaray Belgiumka, boqortooyada midowday Ingiriiska, Denmark, Djibouti, dawladda Mareykanka, Faransiiska, Finland, howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Soomaaliya, Holland, Ireland, Ethiopia, Japan, Jarmalka, Kenya, midowga Yurub, Norway, Spain, Sweden, Talyaaniga, Turkiga, Uganda, urur goboleedka IGAD iyo qaramada midoobay. shir degdeg ah oo ay yeesheen xalay maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha ammaanka ayaa looga hadlay amniga magaalada Muqdisho waxaana shirkan shir gudoominayay kusimaha duqa Muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Mudane Axmed Xasan Iimaan. kulanka waxa goob joog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud agaasinka guud ee amniga caasimadda gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha ammaanka. afayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa ka warbixiyay ahmiyadda shirkan looga hadlayay amniga caasimadda. Kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda Mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa maanta shir gudoomiyay ee kulan loogu hadlayay amniga caasimadda Muqdisho. kulanka waxaa goob joog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo waliba agaasinka guud ee amniga caasimadda Muqdisho. sidoo kale gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan ayaa shirka goob joog ka ahaa. kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa sugidda amniga caasimadda Muqdisho iyadoona la isla qaatay howlgallo baaritaan oo joogto ah in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho si amniga caasimadda wax weyn loogu bedelo. ugu dambeyntii shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa laga codsaday in ay si laba jibaaraan
wada shaqaynta ay la leeyihiin laamaha ammaanka si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ee ka geystaan caasimadda magaalada muqdisho iyagoo beegsanaya shacabka qaybahooda kala gedisan iyo weliba ganacsiga guud ahaan shirka ayuu ahaa mid diiradda lagu saarayay sugidda amniga caasimadda muqdisho sidii loo dardargelin lahaa isla markaana maalmaha foodi nagu soo hayso shacabkaba ay dareemi doonaan in isbedel weyn oo dhinaca amniga ah laga sameyn doono caasimadan muqdisho isla toddobaadkan ayay ahayd markii muqdisho uu ka dhacay qarax ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 10 ruux duqa degmada Baran Axmed Maxamed Timir ayaa kormeerka ku tagay tuulada Dhanaha oo 13 kiiloomitir dhanka koonfur kaga beegan degmada Baran waxa uu ugu kuurgalayay waxyeelada uu geystay tuuladaas roob dabayl watay oo ka daay deegaankaasi roobkaas oo burburiyay inta badan guryihii ay deganaayeen dadka deegaankaasi guryahaas oo markoodii horeba u badnaa guryo ka samaysan cooshado la isu geegeeyay maadaama dadka deegaankaasi degan ay u badan yihiin dadkii xoolahoodii ay kala tagtay abaartii sima sidoo kale roobka dabaysha watay ee ka daay deegaanka Dhanaha ayaa burburiyay iskuul ay dadka deegaankaasi carruurtoodu ay wax ka baran jireen waxaana duqa degmadu u warbixino ka dhageystay odayaasha tuulada Dhanaha kuwaasi oo kaalmo dalbaday haddii aan ka warbixiyo halkan waa Dhanaha aniga gudoomiyaha Maxamed Saciid Jidible aan ka warramo dhibtii uu soo gaaray roobkii iyo dabayshalay 70 guri oo dadka guriyaha dadku ay aragtaan ay naag taaganahay 70 guri baa dumay waxa ka sii daran iskuulkii suuliyaashii gurigii martida oo aad ka arki doontaan halka ka arki doontaan intaasina way duntay waxa dheer dadkii baadiyaha kii aqal Soomaaliland kuma harin waxa la sheegayaa 7 qoys ilaa 8 qoys oo arigii uu kala tagay waa Dhanaha raxmadii daaday waxay u geystay waxyeelo weyn oo idin muuqata guri baan dhaafin iskuul baan dhaafin adeed maayo waxyeelada yacniga wixii ay haysteen oo adeed ma kala markii yacniga guriyihii dadkii qoyay taa waxa weeye yana sidaas weeye tamiyiga inta agaarka u muuqata waxa weeye inta xooluhu wax gaadheen yacniga waxa weeye waan ognahay waa 8 reer aad bay yacniga ariga u dhibaataysay aqaladuna waa dumeen dhulkay galeen sabarka haddii aan ku daro oo ay taas isku mid yihiin 30 guri baa ka dhacay guri kama taagna dadka dhowr qof wax u gaadheen wixii adeed maayo kalena dee yacniga indhaheedina idin macallina dadku gurmad buu baahan yahay gurmad waxa la ilaahay ba iskale mid yacniga saxaafadeed mid adeed mee dawladeed mid yacniga kastaba ilaahay baa u baahan yahay dadkanu qaybta ciidamada booliska gobolka Hiiraan Cornel Isaaq Cali Cabdulle oo maanta shir jiraayid ku qabtay saldhigga booliska Beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay qarax miino oo shalay lala eegtay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya oo ku sugnaa afaafka hore ee garoonka ciyaaraha ee Laqay oo ku yaala duleedka Beledweyne taliya ayaa waxa uu tilmaamay 3 askari oo ka tirsan ciidanka booliska ay ku dhinteen qaraxa 3 kalena dhaawac uu ka soo gaaray waxa uu tilmaamay in falkaasi ay u soo qabteen tiro dhalinyaro ah haddana baaritaanna ay ku socdaan ciidanka booliska ee saldhigga Beledweyne oo waajibaadkiisa gudanayo isla markaasna ciyaar xaafadaha Beledweyne ciyaar kubadda cagta ah oo ay xaafadaha Beledweyne stadiumka kubadda cagta ee Beledweyne ay muddo dhowr casho u socotay ay ciidanku waxay u aadeen ammaanka ay sugaan arrintaasi waxaa meesha ku diyaar ahaa qarax ee dhagarqabayaashu ugu talagaleen dadka Soomaaliyeed ee faraxsan u yimid inay ciyaartaas daawadaan ama taageerayaasha u ahaa kooxihii xaafadaha Beledweyne ka yimid inay ku dhibaateeyaan ay ku baabi'iyaan sida caadadu u ahayd laakiin ma dhicin arrintaasi waxaa dhacday in ciidanka booliska oo foojigan doonayaan inay badbaadiyaan shacabka ay ka hormareen meeshii dadkana ay ka celiyeen isla markaana si lama filaan ah ay miinadan ugu qaraxday afaafka ama iridka laga galo stadiumka meeshaasi 3 askari baa inooga shahiid oo inooga dhimatay Allah u naxariisto
saddex kalena dhaawacyo fudud ayaa ka soo gaaray wadarta dhimashada saddex askari anaga meesha noogu shahiiday saddex kalena dhaawacyo fudud ayaa ka soo gaaray qaraxa wuxuu ahaa nooca dhulka lagu aasa ayuu ahaa meesha ayay ku diyaariyeen iridda ayay ku diyaariyeen laga galo stadiumka ayay ku diyaariyeen kabacdina sidaas ku qarax way jiraan ilaa xalay ilaa saaki waxaan wadnay baaritaano iyo howlgal ayaan wadnay dadaan u hayno way jiraan baaritaan ayaana lagu samayn doonaa insha Allah tacaala wixii ka soo baxdana media u soo bandhigi doonaa haddii banaanbaxan oo ahaa mid lagu taageerayay toogasho loo geystay laba ka mid ah eedeysanayaal lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen kufsi loo geystay wiil yar oo 13 jir ah ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay banaanbaxan waxaa ka soo qayb galay bulshada qeybaheeda kala duwan iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo ugu horeen waxaa goobta ka hadlay la taliyaha arrimaha haweenka ee madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Aamino Maxamed Mursal iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Bay Muraaye Madeer maamulkii madaxweynaha ka sareeyay oo go'aan degdeg ah ku deeranka mahadnagaana waysan lana geek walaal inta surugna way buuxa inii maray farxadii shalay nimankii la toogdi oo ma raayis waliba dilka una fadaan malka dilnay dabagal ku leeyahay dabagan ila ku hayti way fadaan inii ma raayis reer koonfur galbeed gaar ahaan reer gobolka Bay isag may buu gacmo saaysataan walaagas walaay noocaas la ka sheegay talaabo sharci tan ee ku yeel ka qaado doona maanta waxa way maalin weyn waaye maalin farxadeed waaye maalin mataqaana ii sheegay ummadii koonfur galbeed ku nool degmada Baydhabo oo dhan banaanka iskugu soo baxeen waaye sababaha u soo baxday waa dareemi kartiin waxa waaye mataqaana masiibadii mataqaana maalmahan ka socotay Baydhabo iyo go'aankii dhaxalgalka ahaa go'aankii sharafta lahaa ay qaadateen culimo awdiinkeena ugu horeeyo markii ay ka doodeen isla markii waxa go'aan sharaf la sii qaatay xukuumadda mataqaana dawladda sidoo kale gudoomiyaha gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxa ayna shacabka banaanbaxayay u sheegeen inay sidaan oo kale cadaaladda u marin doonaan cid walba oo ku dhaqaaqda falceynkani oo kale ah way ma hadlay shacabka halka qayb galay xafladan beelaha banaanbaxa oo ka dhigay in beelaha samahay humaanta iyo dhalarooga ku suubihay dalka Soomaaliya ama koonfur galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo oo humaanta dhaqaaqay oo abaal shooran la maray waajib shooran la maray dawladana waajib shoo maraydi dawladda marka hore dawladda ma hadlagaan dawladda ha guulaysato koonfur galbeed ha guulaysato madaxweynaha koonfur galbeed ha guulaysto madaxweynaha koonfur ha guulaysto madaxweynaha ha guulaysteen guulaysta marka saas daraadeed way fadaana meel raayis maxay lankasta oo Baydhabo ku nool dhibaatada la suubi rafaadka la suubi araga haytaan shalay markii nimanka la dhamaay rooba kooy ilaa ta roob wadahay nicmo ilaahay kooyti haddii uu saasa weelalahay ilaahay in aroodo lahay oonay toy uma bilatun ku dhii walaa lagu korseeday shalay dadka dambiida galeen oonay toy lan iqaabay ma indigaane anta kale oonay toy damasnaati saas lan kasta oonay toy ka gabood fala mayl raay iyaal ik of wiig wal wel oonay toy gabood fala oo dalkun ku dhii lan joomay waa ti shalay la suubiya antaal waajib shoo la mariye wala iqaabe may ba sheegana dadweynaha lan alla iyo lanki ku wareelan lan alla lanki ku ogaadan arrinteeda ay wal ik lug leen sheegan ha sheegan dadka oo arrimayo iska dayow may baa nimay ku digaane naftiyo halisan gelina may baa way go'aanka yaala koonfur galbeed in lanki gabood fal suubi lanki ka suubi iyaal isku dhaaf lanki bilaan kala ka suubi onaad in saas lan dilo lanki bilaa may hoog in la dilo lanki iyaal farxuma in la dilo dambiidaasi oo toy haarantay lanki suubi may waa in la iqaabo yaan sheegana banaanbaxan ayaa waxa lagu taageerayay talaabadii shalay ay qaadeen guddiga amniga koonfur galbeed Soomaaliya kaas oo ahaa amar ay ku bixiyeen in la toogto dadkii ka dambeeyay fal kufsi ahaa oo loo geystay wiil 13 jir ah maalmihii ugu dambeeyay ama habeenadii ugu dambeeyayna Baydhabo waxa ka dhacay kufsi loo geysanayay wiilal aad u daayar oo daadooda u dhaxaysa 13 jir ilaa iyo 8 jir taas oo ay aad uga dhiidiyeen shacabka magaalada Baydhabo wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odowa Yusuf Raage xilalkii looga qaaday taliyihii guutada shanaad
qayb 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Korneel Faarax Cali Waasuugi Faarax Kooshin waxaana xilkaas cusub ee guutada shanaad loo magacaabay Korneel Maxamuud Xasan Ibraahim Baakaay oo horey u ahaa taliyaha guutada 22aad ee ciidanka xoogga dalka. dhanka kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa isna xilka ka qaaday abaanduliga guutada shanaad gaashaanle sare Maxamed Cabdi Xasan waxaana xilkaas taliye ku-xigeenka cusub loo magacaabay gaashaanle dhexe Cabdullaahi Barre Cilmi. munaasabadda xil wareejinta ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka dhacdo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. saraakiisha xilalka u kala wareejin doona madaxda cusub iyo kuwii hore ayaa soo gaaray maanta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. saraakiisha cusub ee loo magacaabay guutada shanaad ayaa waxaa horyaalla waxqabad badan oo ay kow ka tahay wax ka qabashada amniga gobolka Hiiraan, dib u habeynta ciidamada, ilaalinta xuquuqda ciidamada iyo inay isku furaan degmooyinka gobolka Hiiraan oo ay kala go'doomiyeen Al-Shabaab. kusimaha duqa Muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka Banaadir ayaa xariga ka jaray xarunta agoonta hablaha ee degmada Boondheer ee gobolka Banaadir. xarig jarka ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir oo horkacaya kusimaha duqa Muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda mudane Axmed Xasan Iimaan, agaasimaha waxbarashada gobolka Banaadir, agaasimaha guud ee amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale. Nuurta Maxamed Cadow maamulaha dugsiga agoonta hablaha ayaa ka warbixisay dugsigan ay maamulka ka tahay waxayna sheegtay in xaruntani marxalado badan soo martay. waxaan ka soo bilaabnay 0 tiirarkii la gudahay intii maalintii ugu dambeysay oo jimcadii daraad iskoolada la furay u dhismadaas dhamaaday. qaybihii ugu dambeeyay waa 2 hol oo isdul saaran oo waliba holka sare u qalbaysan iyo kushiinki lacagahaas oo aanan hay'ad gaar ah lagula tashanin, cid gaar ah lagula tashanin, cid aan kula tashanayno waxay ahayd anaga gobolka Banaadir oo aan ku lahayn gacarsaar aan ku xisaabtamayno dhaqaalaha aan ka qaadano walow ilmihii ay culays guryaha ku ahaayeen. caruurtaas oo qaar inta badan background-kooda marka fiiriso iyo guryaha ay ka soo kaceen iyo xaaladda hooyadood ay ku sugan tahay, dareenka muslimka iyo qofka Soomaaliga iyo qofka wadaniga iyo qofka mas'uulka ah runtii uu aad uga qoomameyna kana damqanayo in dib loo fiiriyo way ila tahay in xaaladaha agoonta in hore looga wadana way ila tahay meesha ay taagan tahay. cid walba kaligeed wax ma qaban karto haddii aynan garba helin annaga qarannimada iyo dowladnimada noo garba ah. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Axmed Maxamed Shuute ayaa isna goobta ka hadlay. waxaan rabaa mudane gudoomiye inaan kaaga mahad celiyo anoo ku hadlayo afkii gudoomiyaha degmada Boondheere iyo bulshada reer Boondheere maanta sidaad noogu soo ajiibtay inaad soo booqato gabdhahan quruxda badan iyo maamulkooda oo meeshii ay ka soo bilaabeen iyo challengeska ay soo mareen lagu tilmaamay. hadda kadibna aan rajaynayo inaad gacanta midig ku qaban doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo. mudane gudoomiye farxad weyn inoo tahay dhammaan waxaan si kal iyo laab ah ugu mahad celinaynaa annagoo ka maamul ah iyo annagoo ka deegaan ah. maama Nuurto oo runtii u soo dhabar adeegtay wax kasta oo abaal marin haddii la siiyana aysan waxba ka tarayn. kusimaha duqa Muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa soo gabagabeeyay munaasabada. arrintan maanta halkaan u joogno ah inaan furayno mashruucii halkaan bilowgii oo la ballaariyay xarumihii ku soo kordhay farxaday noo tahay. wixii dhiman iyo wixii baahiyoo jirana si buuxda u garab istaagi doonaa waana kala shaqayn doonaa maamada daala. waxaan kaloo rabaa inaan u sheego maamada maamulku markii horeba si uu garab taagnaa laakiin hadda sidii si ka badan maadaama 800 ku dhawaad gabdhood buuxisay booskii aabahood ugu jiray.